si loo ambaqaado fulinta lixda tiir ee xukuumadda oo tiirka koowaad uu amniga u yahay ayaa wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo dardar gelinaya muhiimadda amniga uu leeyahay waxa kulan looga hadlayay amniga uu la qaatay saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed kulanka oo ka dhacay taliska booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa wasiirka ku welinayay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa agaasimaha guud ee wasaaradda Yuusuf Cali Maxamed iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay taliyaha xigeenada ciidanka booliiska taliyaasha qaybaha hogaanada iyo fadhiyada madaxa bannaan ee booliiska iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliiska wasiirka ayaa saraakiisha ka dhageystay howlaha amniga iyo istiraatiijiyada guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar mudane wasiir saraakiishan aad u jeedid ciidanka booliiska Soomaaliyeed xaruntiisa inta ka shaqeysa way ka badan yihiin inta tan iyo gobolka Banaadir intani waa inta rangaraysa hawl maalmeedka ama mas'uuliyadda aan si kala daawiraah waa mas'uuliyiinta madaxda ka ah taliska guud haday tahay taliyaha iyo taliye xigeenada hogaamada iyo qaybaha iyo maxaa waaxyaha madaxa bannaan fadhiyada madaxa bannaan wasiirka amniga gudaha Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn rasmi ah oo dhexmarta ciidanka booliiska iyo shacabka Soomaaliyeed marxaladan waxaan rabnaa booliis wada shaqaynaya qaybihiisa kala duwan ama ha ahaado heer federaal ama heer maamul goboleed booliis wada shaqaynaya hogaanadiisa kala duwan kuwa gobolka Banaadir jooga kuwa ka baxsan iyo booliis ay bulshadu la shaqaynayso booliiska wuxuu caawin karaa oo abuuri karaa jawigii nabad ay ku imaan lahayd laakiin saan uga shaqayn karnaa bulshadii inay saaxiib la noqoto booliiska wuxuu leeyahay kooxdii fanka heegan aad baa loo jecel yahay Soomaaliya waa albaab fiican oo bulshada laga geli karo booliiska waxay leeyihiin kooxdii kubadda cagta ay leeyihiin waa albaab kaleeto oo xiriirka bulshada laga geli karo saldhigyada booliiska adeegyada ay sameeyaan waxaa lagu dari karaa adeegyo aad u tiro badan oo ah markuu taliyihii sarkaalkii soo bandhigayay prestationka wuxuu tilmaamay kaysaskii intoodii badnayd 3 meelood oo 2 meel waxaa lagu xaliyay booliiska xaliyay marka waa yeelayntaas iyo odayntaas waxay u baahan tahay in la xoojiyo wasiiru dowlaha wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa ayaa booliiska ku amaanay doorkooda wanaagsan ee sugidda amniga iyo nafhurnimada leh ee qaranka ay ugu adeegayaan waxaan u baahanahay horta inaynu inagu iska dhaadhicino maskaxiyan inaynu amnigii dalka gacanta ku hayno kula finaana sababtoo ah waxaas oo qayb iyo sectors oo dhisan ee la soo dhisay basic dawladnimo iyo ciidan dhamaantiin waa haysanaa laakiin duruuf way jirtaa maanta shalay siday ahayd iyo bari siday noqonayso aad bay u kala duwanaanaysaa marka inaynu duruuftana ku samirno muxuu ahaa qalbiyadeena geliyay iimaankeena aan gelino inaynu dalkii inagu leenahay amnigiisina gacanta ku haysano waxay naga dhimanayaan imika aan jirin wasiirka amniga gudaha Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe ayaa ugu dambeyn booliiska ku bogaadiyay garab istaaga ay u muujiyaan caruurta agoonta ee booliiska dhaqaaleynaysiin agoontii booliiska Soomaaliyeed arrintaas waa arrin aad u qiimo badan waa arrin muujinayso dadnimada iyo dareenka bani aadanimo ee booliiska Soomaaliyeed in agoontii la dhaqaaleeyo waliba lagu dhaqaaleeyo jeebkooda lacag ay ka soo saareen lacag aan dibadda ka imaan ay tahay in wax la baro oo wiilal iyo gabdho ay ku xareysan yihiin kollejadii jiif iyo raashin iyo waxbarasho ay haystaan sidoo kale wasiirka amniga Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe ayaa kormeeray qaybaha taliska booliiska Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin xafiisyada hogaanada ciidanka waaxda kaydka xogaha hogaanka xiriirka bulshada hogaanka qorsheynta iyo tababarada hogaanka isgaarsiinta hogaanka kaamirooyinka qarsoon iyo hogaanka booliiska Interpol iyo xiriirka caalamiga ah kuwa oo warbixino uga dhageystay saraakiisha ka howlgasha